salaamullaahi calaykum kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada warbixinadii aan ku falanqeynaynay kiiskii yaalay maxkamadda ee ka dhanka ahaa doorashada ay ku soo baxeen gabanaha ismaamulka Wajeer Axmed Jiir ee ku xigeenkiisa Axmed Caato. haddaba warkii hore war soo dhaaf xogo cusub iyo warbixino cusub ayaan daawadayaal doonaya inaan kula wadaago oo la xiriira kiiskan oo gudbiyay Xasan Fuuje in iminka uu marayo meeshii ugu dambeysay oo lagu aasayay. markii hore oo ay maxkamaddu socotay waxa uu marayay heerkii kiiskaas uu ku dhimanayay waa la soo dhaafay. hadda wuxuu marayaa meeshii lagu aasayay ama xabaashii lagu aasayay. maxaan sidaas u leeyahay warbixino kulul iyo xogo cusub ayaan hadda daawada helnay oo aan doonaya inaan kula wadaago. daawadayaal muddadii 7 cisho 8 cisho ahayd oo kiiskan uu socday labada dhinacna su'aalo la weydiinayay ayaa sharci yaqaanadii dalka ugu waaweynaa oo aan qaarkood la fariisanay iyo sidoo kaleeto xogo hoose oo aan ka helayno Xasan Fuuje kooxdiisa iyo isagaba marka la isku daro oo la isku keeno waxay maanta banaanka soo dhigeen in Xasan uu ka shalaynayo ka qowmameynayo kiiskaas uu maxkamadda u gudbiyay. warka hadda soo baxay daawadayaal waxa uu sheegayaa in meesha uu Xasan Fuuje ka geeriyooday kiiskiisana uu oga dhintay inay tahay marqaatiyadii uu soo watay. xusuusno marqaatiga waxa uu kaalin weyn ka qaataa xaakinka maxkamadda go'aanka uu gaarayo waayo iyaga ayaa lagu tashadaa, iyaga ayaa warkooda si weyn loo dhageystaa. sababtuna waxay tahay qareenada labada dhinacba difaacayo mise u ololeynayo meesha ay wax ka dhaceen maysan joogin. xaakinka sidoo kale isna meesha ay wax ka dhaceen ma uusan joogin. sidaasi daraadeed cidda la dhageysto waxa weeye marqaatiyada labada dhinac waayo iyaga ayaa joogay meesha ay wax ka dhaceen waana sababta ay kaalin weyn uga qaataan go'aanka uu gaarayo xaakinka. haddaba marqaatiyadii iyo shaahidiintii Xasan Fuuje ayaa ceeb dhex fadhiistay. si kala markaan u dhigo wixii loo soo watay iyo wixii ay maxkamadda ka sheegeen waa ay iswaafaqi waayeen waana tan keentay in Xasan siduu rabay markii ay marqaatiyada wax u sheegi waayeen uu iminka horena aan idinkula wadaagay uu ka niyad jabay bataatanba uu iminka iska dhaafay arrimaha maxkamadda. maxaan u leeyahay dhowr marqaati oo halkaas ka hadlay iyo waxyaabihii ay ku hadleen iyo sida loola yaabay ay u ahaayeen kuba liita ayaan doonaya inaan kula wadaago. marqaatiga koobaad wuxuu ahaa Ibraahim Sheekh wuxuu ahaa musharaxa xilka senator ee Wajeer sidaad ogtihiin. waxaa ku adkaatay inuu ka jawaabo sababta haddii doorashada si cadaalad ah aanay ugu dhicin uu isagana dacwad ugu gudbin waayay maxkamadda. haddaba waxaa la weydiiyey adigaba musharaxayaad ahayd oo Wajeer maxaa keenay in aad dacwad keeni weyso maxkamadda oo aad dhihi weyso doorashadan si qalad ay u dhacday oo aad u suugtay oo kaliya Xasan Fuuje. waa uu jawaabi waayay. taasi waxay caddaysay inuu yahay nin garbaha la soo qabtay oo aan la socon ama aan waxba ka ogeyn waxyaabaha loo soo watay. waxa uu maxkamadda u sheegi waayay Ibraahim ayaan ka hadlayaa weli waxa uu maxkamadda u sheegi waayay sababta uu marqaati ugu yahay Dr. Xasan in hadaladiisa oo dhan waxay ahaayeen waxa la yiri. horaan idinkugu sheegay qofka marqaatiga ah waa ninka lagu tashado haddii maxkamad kiis la geeyo waayo isaga ayaa la aaminsan yahay in uu joogay meeshii ay wax ka dhaceen. isagii marqaatiga loo soo watay haddii uu yiri waxa la yiri macnaheedu waxa weeye ninkaas marqaati ma ahan ee waa nin dhegta la soo qabtay isagoo magaalada Wajeer dhex socda kadibna loo sheegay waxa uu maxkamadda ka sheegi lahaa. qofka labaad waxa uu ahaa Axmed Bashiir Cabdi waa marqaatiga labaad ee Dr. Xasan. wuxuu ahaa musharaxa xilka xildhibaannimo ama kursiga xildhibaannimo ee bariga Wajeer. isagana sidii oo kale ayaa ku dhacday oo hadaladiisa waxay noqdeen waxa la yiri. haddii loo baahan yahay waxa la yiri marqaati ahaan looguma wacdeen laakiin sababta ay sidaas u yiraahdeen waxay tahay wixii loo soo sheegay ayaa ka dhamaatay
markii ay maxkamadu tageen oo su'aalo la weydiiyay ilaan meesha su'aalo ayaa la isweydiinayaa qarinada labada dhinac su'aalo ay ku weydiinayaan oo ku aadan marqaatinimadaada waxaad aragtay waxaad goobjoog u ahayd ayaa lagu weydiinayaa marka waxay u maleynayeen marqaatiyadan la soo waday in marka ay maxkamadda yimaadaan in wixii loo soo sheegay ay sheegayaan kadibna ay sidaas isaga baxayaan waa tan keenta marka wixii loo soo sheegay markii ay sheegeen kadib su'aalihii la weydiiyay inay ku adkaatay oo yiraahdaan waxa la yiri qofka saddexaad wuxuu ahaa oo marqaatiga saddexaad oo Xasan Fuuje ka socday ee fashilmay marka uu meesha dul istaagana wax sheegi waayo wuxuu ahaa Farxaan waa shaqaale kamid ah dawladda Wajeer waxa uu bilaabay inuu maxkamadda been u sheego oo uu yiraahdo ma shaqeeyo kadib markii cadeymo la soo hordhigay inuu dawladda u shaqeeyo ayaa waxa isaga dhaxyaacmay wixii beenta ahaa oo uu soo diyaarsaday ilaan been halug ay leedahay waxa uu sheegay in doorashada ay ahayd mid si cadaalad ah u dhacday uu isku dhaxyaacmay su'aalihii ayaa dhinacyada looga garaacay taasi oo sababtay in wixii loo soo sheegay oo Xasan kooxdiisa u soo sheegeen mooyee wax kale oo cusub uu sheegay oo uu sheegay in doorashadaas ay si cadaalad ah u dhacday waa sida aan soo sheegay haddii qofka marqaati uu yahay oo uu wixii uu arkay oo sax ah sheegayo inuu isku dhaxyaacmo lagama yaabo waayo wixii uu arkay oo 9kii Agoosto doorashada ay dhacaysay ayuu sheegi lahay qofka afaraad ama marqaatiga mashaahidka afaraad oo dhanka Xasan ka socday oo horseeday in Xasan uu iminka iska dhaafo arinta kiiska oo uu hadda sugayo oo kaliya xaakinka maxkamadda wuxuu ku dhawaaqay wuxuu ahaa Mzee Cumar marqaatiga afaraad ayuu ahaa wuxuu sheegay inuu isagana xanuunsanaa oo uu warba ka haynin wixii dhacay marqaatina uusan noqon karin duqan sababta sidaas uu yiri waxay tahay markuu arkay marqaatiyadii kale siday muxuu ahaye wixii la weydiinayay ama wixii ay filayeen wax ka duban iyo su'aalo kulul markii la weydiiyay uu arkay ayaa isagana waxay u muuqatay in bedelkii uu isku dhaxyaaci lahaa uu sheego oo yiraahdo waa xanuunsanaa marqaatina ma noqon karo su'aasha markay isweydiinta mudan waxay tahay nin laga soo waday Wajeer oo marqaati ahaan loo soo waday markii uu maxkamadda yimid oo waliba marqaatiyadii ka horeeyay ee hadleen in isagana uu yiraahdo waan xanuunsanaa oo warba ma haynin maxay tahay taasi waxay banaanka soo dhigaysaa inuu argagaxay wixii loo soo sheegay wax ka weyn meesha ay timid arinta maxkamad weey arinta kiis weey dacwad weey waxa la doonayaa in kursi gobernatoore la burburiyaa la doonayaa sidaas daraadeed howl fudud oo laba eray aad halkaas ka sheegaysa ma aha markuu arkay marqaatiyadii ka horeeyay wixii ku dhacay isagu wuxuu yiri waan xanuunsanaa marka waad fahmi kartaa qof Wajeer laga soo wado Nairobi la keenay marqaati ahaan kadibna yiraahdo waan xanuunsanaa oo maxaa loo soo wadayay hadii uu dhihi doono waan xanuunsanaa oo warba haynin waxyaabo badan ayaa banaanka ku soo dhigaysa adigan idaawanaya ayaa waxa noo cadaan kartaa intaas markaan aragno in kiis uu halkan jirin ninkii maxkamadda joogay oo xaakinka ahaa ka waran marka waxaas muxuu leeyahay in kiis uu sanahayn ayuu og yahay marqaatiga afaraad wuxuu ahaa Macalin Bashiir waa shaahidkii afaraad Dr. Xasan uu watay Dr. Xasan waa nin wato shahaadada dadka maskaxda looga jiro oo ay adag tahay in wixii uu sheego la aamino la yeelo la aqbalo la qoro hadaladiisa ayaana isqalday oo wuxuu noqday nin aan ka warqabin wixii ka dhacay Wajeer horaan idin kula soo wadaagay Macalin Bashiir wuxuu kamid ahaa dadkii soo wacay ama dadkii ugu horeeyay ee soo wacay Axmed Jiir oo uu ugu hambaliyay guushii uu gaaray maantana marqaati ahaan ayaa loo soo waday inuu yiraahdo Axmed Jiir si cadaalad ah kuma dhicin bal labadaas eray labadaas hadal isqabadsi Axmed Jiir markii uu maxkamadda joogay ayuuba sheegay yiri Macalin Bashiir oo hadda sheegayo in doorashada ay si qaldan u dhacday isagu wuxuu kamid ah dadkii ugu horeeyay ee isoo wacay ee ii hambaliyay marka isagoo taas laga hayo cadeyntaas laga hayo ayaa haddana cadeynta labaad waxa weeye in uu haysto warqad ka timid cisbitaalka dadka maskaxda ama dhimirka looga jiro ay joogaan taasoo micnaheedu yahay in warkiisa haba yaraatee aan la aqbalayn isagoo markii horeba fashil ku sugnaa
Dr. Xasan oo kaniya jabay marka qaabka ay maxkamadda u socotay iyo wixii uu la hortagay maxkamadda inay soconayeen ayaa wuxuu codsaday in loo xisaabo warqadaha codeynta. Waa codsi cusub oo uu keenay maxkamadda markii ugu horeysay oo uu tagayay codsigiisa kuma jirin dib hal ugu xisaabo codadka kuma jirin. wuxuu markii ugu horeysay oo maxkamadda tagay uu doonayay in doorashadan gabi ahaan daaqada laga tuuro. laakiin marqaatiyadan oo hadda aan soo sheegay inay yihiin dadka aad loogu xisaabtamayo oo uu xaakinka ku xisaabtamayo iyo sidii ay u hadleen markuu arkay codsi cusub ayuu gudbiyay marka Dr. Xasan Fuji oo yiri hal ii xisaabo codadka. waa codsi cusub oo maxkamadda la filayo in ay go'aan ka gaarto 16 bishan ugubka ah ee Janaayo. haddaba arin kale ayaa jirto marka oo ugu dambayso. Dr. Xasan sidoo kale intaan ka bixin arintiisa wuxuu codsanayaa in lacagtii kaga baxday ololaha doorashada in dib loogu soo celiyo uuna diyaar u yahay inuu tanaasulo maadaama uu arkay inay dacwadda qarka u saaran tahay in daaqada laga tuuro. bal fiiri sida uu marba marka xigtaahi uu u keenayo codsiyadaasi oo marka aad fiiriso dhuuxdo oo aragtid oo qaada dhigtid falanqeysa dhinacyo badan ka fiiriso ay ku soo baxayso inuu yahay nin godsi galayo, nin qoraxda ay u sii dhacayso. markii ugu horeysay muxuu yiri doorashadan hal burburiyo. markuu arkay marqaatiyadii uu la yimid inay waxba haynin uu bedelay wuxuu yiri hal ii xisaabo codadkii la dhiibtay oo dib ha loo xisaabo. taasina inkastoo maxkamadda ay go'aan ka gaari karto ama ay go'aan ka gaari doonto wuxuu haddana yiri oo uu codsanayaa war ii celiya lacagtii igaga baxday doorashada iyo ololihii doorashada anigana aan ka tanaasulo kiiskan aan maxkamadda geeyay. waa gabaldhac. intuu ku maqan yahay ama intuu ku dambeeyay ninkii deputy-ga u ahaa Xasan Fuji isagoo hadlayo arimahan kiiska ka hadlayo aad bay u tiriyir yihiin haddii aan la arkinba. sababtu waxay tahay ninka Axmed Jiir deputy u ah iyo ninka hadda Xasan Fuji deputy u ah hal qoys ka soo jeedaan, hal deegaan ay ka soo jeedaan, si kala markaan u dhigo hal beel ay ka soo jeedaan. dhanka deputy-ga markuu ninka deputy-gu ah marka Xasan Fuji uu ka gaabsaday inuu ka qayb galo kiiska maxkamadda waayo qoyska uu ka soo jeedo ayaa ka codsadeen inuu ka gaabsado maadaama ninka hadda deputy u ah Axmed Jiir uu isla beeshaas ka soo jeedo. sidaas awoodeedna aanay dan ugu jirin maxkamadda ama macallim Salal isku soo wada duub. marka xogihii ugu dambeeyay marka waxay sheegayaan in Dr. Xasan Fuji uu kiiskan sidaas uga haray iminkana codsiyo cusub oo gudbinayo mar hal la ii reebo lacag si aan kiiska uga haro, mar uu leeyahay hal ii xisaabiyo iyo wax noocaas oo kale taa. wixii soo kordhay waan kula wadaagi doonaa daawade. laakiin marqaatiyadii oo uu Xasan Fuji ku xisaabtamayay maxkamaddan ay ku xisaabtamaysay waxay noqdeen kuwo madhaliis ah.